doorashadii golaha wakiilada xalkii saddexda xisbi qaran ee 27kii bishii hore la gaadhay ee ay ku heshiiyeen in qayb ka mid ah la horgeeyo golaha wakiilada oo ahayd labadii xubnood komishanka lagu darayay shalayto golaha wakiiladu way laaleen inkastoon dhageystay sharci yaqaanku macquula ay ila ekayd siduu u dedefaynayay laakiin waxaan aaminsanahay xusbiga kulmiye weliba golaha wakiilada majority sagaale ama xusbiga isku ogaada ama yaan isku ogaan ka daacad maaha dalkeena doorasho ka dhacdo golaha wakiilada haddii aan weliba sii kala saaro golaha wakiilada Somaliland sanadkii 15aad buu soo galaya 3 teeram ayay fadhiyaan xeerkii lagu dooran lahaa may sameyn wax kale iska daa iyagu xeerkii lagu dooran lahaa may sameyn mar kasta oo doorasho la soo hadal qaadana waxay horseed ka noqdaan caqabadaha iyagoo oo markaa la soo baxa ama saami qaybsi ama caqabad kale oo doorashadaasi lagu hor istaagayo markaa nin isagii doonaya cimri dherer iyo inuu kursiga sii fadhiyo horta cidda xalka ka doontay ayaa qaldanayd waxaan kaloo ku darayaa dalkan haddii la doonayo inay doorashooyin ka dhacaan waxaa muhiima in daacad laga wada noqdo oo saddexda xisbi qaran wixii lagu heshiiyey mid waliba dhinaciisa fuliyo waxa ayaan daraa wixii lagu soo heshiiyey ee la keenay meesha in la laalay waxa warwar weyn haddaba dhagaga jira horana maalin dhaweyd u sheegay anigu inaanay doorashada markii labaad inta madaxweyne biixitala dalka hayay ay dib u dhacayso muddo kordhinteedina waa kii saleeban habeenkii dhaweyd ka hadlayay oo waa diyaar waxay ahayd oo laga wada dhawaajiyay dib u dhaca doorashada dhacaya inuu noqdo mid farsamo waqtigan laakiin mid ka badan baa imanaysa saan aaminsanahay ugu yaraan hal sano oo dambe ayay dib u dhacaysaa waxa haddaba dib u dhacaya waa masiirkii ummaddan waa mustaqbalkii dadkan golaha wakiiladu waa iyo golaha guurto wax la isku yiraahdo sharci dejinta waa hay'adaha u sameeyo ummadda sharciga ay sameeyaan qof kasta u soo gaadha dadku uma fahansanaa kaalinta muhiimka ah ee ay noloshooda iyo nolol maalmeedkooda ay ku leedahay labadan gole waan sheegay maalintii dhaweydee halkan shirka jaraa'id ku qabtay mid 22 sanadood buu fadhiyaa midna 15 sanadood qofku hadduu meesha ku raago waxa moodaya inuu isagu meesha leeyahay waxa uu caadaysanayaa markasta inuu caqabad hor dhigo wixii dalka u socon lahaa waxa maanta qiranqiir ku sii jiro oo fashil ku dhow nidaamkii dimuqraadiga dalkan qaatay 2001 dastuurkii la ansixiyay ku jiray 2002 bay doorashooyinkii 2002 bay doorashadii golaha deegaanka ugu horeysay 2003 madaxweynaha dhacday 2005 baarlamaanka dhacday saasay soo socday 2010 madaxweynaha dhacday 2012 tii kale golaha deegaanka dhacday 2017 tii kale ee waxa dhacday madaxweynaha intaasoo doorasho mid walba horta muddo kordhinaa dhacay waxaan isleeyahay haddii dalku noocan sii ahaado maxaa xigi doona ummaddu wax badan bay isweydiinaysaa dadka han kale ee ay u muuqdaan bosishanadan iyo kuraasta nimankana ku fadhiyaan ee wax ka qaban lahaa ee dhalinyaro leh ee aqoon-yahan leh ee waxgarad leh ee dhaqaalahoogii iyo hantidoodii dhowr iyo 10 sanadood baa ula taagnaa sida ay golayaashan u geli lahaayeen tacabkoogii waa la khasaariyey tacabkii ummadda reer Somaliland ee halgan lahaa ee dimuqraadiyad lahaa ee wax walba lahaa waa la khasaariyey dhaliisha lama wadaago dadku dhaliisha xusbi hebel baa qabtay lama wadaago
dhaliisha waxa iskale xukuumadda talada dalka hasaas kale golo dalka xukuumad baa loo doortay madaxweynaha loo doortay mandatekiisa ayay ku jirtaa inuu doorashooyinka diyaariyo waqtigoodii isagoo oo arinku wada tashiyaay oo stakeholders daneeyaal doorasho ay jiraan haddana mas-uuliyadda kood madaxweynaha leh ceeb bay ku tahay in markii labaad intuu madaxweyne biixi talada hayay isagoon 2 sano gaadhin mar labaad muddo kordhin dhacayso haddii de sidan lasii ahaado meel walba iyadoo oo weliba marxaladaha kale ee dalku noloshii dhaqaalihii shaqola'aantii ay buuxaan oo maalin kasta 5 kun jaamacadda ka soo baxayso oo mustaqbal iyo wax loo hayaani jirin haddii nidaamkii ilaahu naxariistee waxaan u ducaynaynaa maxamed xaaji ibraahim cigaal dalkan u dhigay hogaamiye dhaba buu ahaa hogaamiye waxa weeye qofka marka uu tago wixii uu ka tegay la munaafacadsado ee loo aayo maalintuu jooga lama gartay laakiin markuu ka tago waxba kumaynaan kordhin waxaanu ka ridna mooyaane marka ummaddu wixii ay lahayd in lagu ciyaaro maaha golayaasha ummaddaa leh shuruucda ummaddaa leh wakhtigan lagu ciyaarayo ummaddaa leh waxaan leeyahay madaxweyne adigay ku dul hoganaysaa ceebta ugu weyn golaha wakiiladu uma malaynaya niman wax dhowranaya inay yihiin oo 15 sannadood bay fadhiyeen oo caqabad kasta oo ay keeni karaan way hordhigayaan laakiin ciddii mas-uuliyadda iska leh ee ay saaran tahay ee lagula xisaabtamaya ee ay taariikhda u gelaysaa wakhtigii uu joogay muxuu qabtay madaxweynahaasi oo madaxweynaha qaranka ee hadda fadhiya madaxweyne biixi waa markii labaad doorashadu dib u dhacayso ma muuqato waxa ka sii daran weliba waxay ahayd sanadka 2022 in teeramkii labaad ee doorashada golayaasha deegaanka 10 sano ee loo qoondeeyay in xisbiyada la furo 2022 ku beegan tahay waxay ahayd doorashada golaha deegaanka ee labaad ayay ku beegmi lahayd doorashada golaha deegaanka ee labaad waqtigeedii baa dib u dhacaya waxa laga yaabaa sanadkan haddii ay dhici weydo 22 ka dhacdo waxaanu codsanaynaa in xisbiyadii la furo sanadka 2022 oo doorashada ugu horeysay golo deegaan la raaciyo si ummadan masiirkeega iyo mustaqbalkeega uga tashato waxa jira kumayaal dhalinyar aqoon-yahan waayeela oo aan ku qanacsanayn nidaamkan dalku u socdo iyo 3 xisbi qaran waxaan horta doonayaa fursaddan inaan uga faa'iideysto inaan baaq nabadeed u diro dadka walaalaha isku dilaya cilafweyn oo runtii ah mushkilad in badan inagu soo noqnoqotay dad aan meel la kala tegayn oo ehel ah oo isku abti ah oo habrowdaag ah oo dhinac walba isku ah oo maalin walba dhibaato dhex taagan tahay iyo dil waxaan ku talin lahaa nin waliba hadduu anaa gar la yidhaahdo waxba ma hagaagaan qofunbaa wax ka tagaa muhiimaddu waxa weeye yaa garla maaha ee sidee nabad loo helaa weeyaan inay cidi tanaasusho oo nabadda qaataan oo annaguna aan ugu ducayno ayaanu rajaynaya horta oon fursaddan uga faa'iidaysanaya